Toddobada dhulgariir ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda. Dhulgariirku waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka dabiiciga ah ee meeraha ugu awooda badan uguna burbura. Iyada oo la awoodo inay ruxaan magaalooyinka, baddalaan xeebaha, oo ay ku nafwaayaan kumanaan qof ilbidhiqsiyo gudahood, masiibooyinkan dhulgariirku waxa ay ka tagayaan burburka oo kaliya, balse tobanaan sano oo soo kabasho ah iyo sheekooyin ku saabsan adkaysiga iyo murugada aadanaha. Qaar ka mid ah dhulgariirka ayaa ku dhuftay xudunta saqdi dhexe ee xalay, iyadoo aan dadka la siin wax digniin ah. Qaar kalena waxaa daba socda duufaano tsunami ah oo uga sii daraya saamaynta musiibada ka dhacday gobollada iyo dalalka ay saameeyeen. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Iyadoo dhulgariir badan ay sannad walba ka dhacaan adduunka, waxaa jira kuwo aad u baan oo wax ka beddelaya taariikhda ummadeed. Halkan waxaa ah 7 ka mid ah dhulgariiradii ugu khasaaraha badnaa taariikhda dhow. Dhulgariirkii Kashmir 2.5 Oktoobar 8, 2.5 dhulgariir cabirkiisu yahay 7.6 ayaa ku dhuftay Kashmir oo ay Bakistan maamusho iyo qaybo ka mid ah gobolka xuduudda waqooyi galbeed. Waxay sidoo kale ruxday qaybo ka mid ah Hindiya iyo Afghanistan. In ka badan 7.9 oo qof ayaa la dilay, in ka badan 3.2 oo dhismo ayaa ku dumay Kashmir oo keliya. Dhulgariirka ayaa dhacay wax yar ka hor xilliga jiilaalka, isaga oo boqolaal kun ka dhigay hoylaan xaalad qabow. Sida laga soo xigtay kooxaha wax ka qabashada musiibooyinka, tani waxay ahayd mid ka mid ah dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee Koonfurta Aasiya muddo 10 sano ah, waxayna daaha ka fayday adkaysi la'aanta kaabayaasha gobolka. Dhulgariirkii Sichuan 2.8 Maajo 2.8 dhulgariir cabirkiisu yahay 7.9 ayaa ku dhuftay gobolka Sichuan ee dalka Shiinaha, kaas oo sababay dhimashada ku dhowaad 9.0 oo qof iyo malaayiin guri. Dhammaan tuulooyinka iyo magaalooyinka waa la simay, gaar ahaan Beituan iyo meel u dhow xudunta Wentuan. Burburka waxaa uga sii daray dhulgo iyo dumay dhismayaal si liidata loo dhisay, oo ay ku jiraan dugsiyo badan oo musiibada daba socotay. In ka badan 3.5 oo qof ayaa ku dhaawacmay. Aafadaasi waxay horseeday baroor diiq qaran iyo dadaallo ballaaran oo dib u dhis ah oo ay dowladdu hormuudka ka tahay oo laga sameeyey guud ahaan gobolka. Dhulgariirkii weynaa ee Berufian 1.7 sidoo kale loo yaqaan dhulgariirkii Ancash, cabirka dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 7.9 ayaa ku dhuftay xeebaha Beru 3 Maajo 1.7 ku dhowaad 7.0 oo qof ayaa ku dhintay, burbur intaas ka badanna waxaa sababay dhulgooy. Dhimashada ugu badan ayaa ka dhacday buurta Hwas'aran, halkaasoo baraf iyo dhagax ay ku aaseen magaalada Yungay. Dooxada Santa Rifer waxaa soo gaaray khasaare aad u weyn, dhammaan bulshooyinkana waxaa lagu baabi'iyey ilbiriqsiyo gudahood. Waxay weli tahay mid ka mid ah masiibooyinka dabiiciga ah ee ugu xun Koonfurta Ameerika taariikhda la diiwaan geliyey. Dhulgariirkii badweynta Hindiya iyo tsunami 2.4 December 2.4 dhulgariir cabirkiisu yahay 9.1 oo badda hoostiisa ah oo ka dhacay xeebaha Indonesia ayaa kiriyey tsunami baan oo ka dhacay badweynta Hindiya. Mawjado ilaa 3 cagood ah ayaa dilay in ka badan 2.3 oo qof 1 wadan oo ay ku jiraan Indonesia, Sri Lanka, India iyo Thailand. Gobolka Aceh ee waqooyiga Sumatra ayaa ugu daran. Masiibadani waxay horseeday mid ka mid ah dadaaladii gargaarka bini'aadminimo ee ugu weynaa abid, waxayna horseeday horumar la taaban karo ee hababka digniinta tsunami ee caalamiga ah. Dhulgariirkii weynaa ee Tangshan 1.9 Bishii Luulyo 2.1 dhulgariir cabirkiisu yahay 7.5 ayaa ku dhuftay Tangshan, magaalo warshadeed oo ku taal waqooyi bari Shiinaha. Waxay ku dhufatay digniin la'aan aroortii hore, iyadoo dhulka la simay ku dhowaad dhammaan dhismayaashii, waxayna dishay ugu yaraan 2.4 oo qof, inkasta oo qiyaasaha aan rasmiga ahayn ay tirada ka dhigayso 6.5. In ka badan 7.0 oo kale ayaa ku dhaawacmay. Dhulgariirku wuxuu baabi'iyey eegaas oo xitaa khasaare geystay ilaa Beijing. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah dhulgariirkii ugu khatarta badnaa qarnigii 2.0. Dhulgariirkii Haiti 2.1 dhulgariir cabirkiisu ahaa 7.0 ayaa ku dhuftay meel u dhow Port-au-Prince Janaayo 2.1 waxaana ku dhintay dad lagu qiyaasay 3.0 oo qof, halka in ka badan 1.5 milyan ay ku barakaceen. Kaabayaasha daciifka ah ee Haiti ayaa si degdeg ah u burburay, taasoo ka dhigtay dadka inay xayiran yihiin iyo adeegyada gurmadka ay awoodi waayeen inay bixiyaan gargaar tiro intaa leeg. Dhulgariir kadib ayaa burbur ku daray. Xaafadaha oo dhammi waxay isku beddeleen burbur ilbidhiqsiyo gudahood. Dhulgariirkii Kobe 1.9 dhulgariirkan oo loo yaqaan Great Hanshin dhulgariir, cabirkiisu yahay 6.9 ayaa ku dhuftay Kobe, Japan, Janaayo 1.9
Wuxuu dilay in ka badan 5 oo qof wuxuuna geystay khasaare ka badan 1 bilyan, taasoo ka dhigtay mid ka mid ah dhulgariirkii ugu qaalisanaa taariikhda. Ilaa 2 oo dhismo ayaa waxyeelo soo gaartay ama la burburiyey. Masiibada ayaa ka dhacday mid ka mid ah meelaha ugu horumarsan Jaban. Waxay calaamad u tahay isbeddelka hababka wax ka qabashada musiibada ee Jaban.